بسم الله الرحمن الرحيم ninka su'aashiisa waxa weeye maanta wasiiradii waa isxashay wiil waa wasiiradii way xilkays ya abaaraha iyo musaayibta miya marka wuxuu leeyahay wasiiradda isxashay soo suurtagal ma inay wadaadadii dhaceen oo xilkii ay ka boobeen jawaabtu waxa weeye wasiiraddu hadday isu xashishay xil wadaadda ka boobeen ama qoladana hadda sheegayno guddiga ka qaateen iyo hadday hawlo kale isu xasishayba kulli wax aad ii khuseeyo ma anigu dadkii wax u dhiibay hadday iyagu mas'uuliyadda dhaceen iyo haddii kaleba dadkii aan u dhiibay amaanada aan u geeyay baa ka warramay dadkaasina dad hawsha loo dhiibay lagu ogyihiin inay yihiinna waan cadeeyay laakiin haddii wasiiraddu ay isu xasilayso in yaroo masaakiin wax yaroo soo gaaray loo qaybinayo tawaaba in la eriyaba horta inta baad isu xasishay ma safilayo warkaasi war saxsan ma wasiiraddu laga yaabo inay dawladda wax ka tirsatay in asbaab kale isu xasishay laakiin hawshani waa hawl kale weey iyada wax ka dhistay maamul dawladda wax ka dhistay dadkanina waa dad si muhiimad gooni oo khaas loo xil saaray muhiimadoodaasna muhiimad lagu haysto oo cid ay ku haysato ma ahayn muhiimad muran ka taagan yahayna ma ahayn muhiimad iska muwaqato waqti koobanna way baahayd oo iyada dhanba iska yar sidaasi arintaasi weeye mana filaya asbaabtu inay taas tahay kulay inay ka hadashayna waa dhici karayso